markii ay rajadaadu lunto waddada aad ku socotidna ay noqoto gudcur madow badan ha murugoonin allah u daa arrinkaaga maxaa yeelay isagaa garanaya wixii khayr kuu ah markii aad ogaatid inuu allah la jirkaaga yahay waxaad arkaysaa inay dunidu noqonayso mid ammaan ah xaqaagana uusan lumaynin waayo allah ayaa ah la jirkaaga dhoolacadday goortii uu kuu imaan waayo arrinkii aad rabtay maxaa yeelay allah ayaa kuugu talagalay mid ka qurxoon markii aad aragtid in koonku uu cidhiiri kugu noqonayo adigana aadan awoodin inaad dhaqaaqdo sabab kaaga timid murugo ku haysa awgeed haddaba ogow in allah uu kuu qoray iftiinka qurux badan waxaad aragtid oo idil markii aad aragtid inay ilintaadu u daadanayso sida dhibcaha roobka ah oo kale ka yeel ilin ay duco ku dheehan tahay waayo ma mudna dunidani in loo ilmeeyo ama loo murugoodo markii aad aragtid shakhsiyaad maraya waddadii aad adigu rajaynaysay inaad martid ogow inuu allah kula doonayo waddo ka qurux badan middaasi ka dhig noloshaada miduu allah raalli ka yahay kana dalbo allah inuu toosiyo waddadaada markaasi ma dhumaysid marnaba maadaama uu allah yahay la jirkaaga ku samir dhibka xisaabso ajir arrin walbana dhanka fiican ka eeg dhoolacadday oo ku samir dhibka kuwa samra rabbi baa macooda ahe qalbigana gasho haddii aad weyse waxaad rabtay inuu allah kula doonayo waxaasi wax ka wanaagsan bal adiguba xasuuso imise arrin ayaynu weynay kadib markaynu la nimid samir uu allah inoogu beddelay beddel ka khayr badan ama markaynu weynay waxaynu rabnay oo aynu samir la nimid aynu ogaanay haddii aynu waxaasi heli lahayn inay dhib inoo ahaan lahayd oo uu allah inaga badbaadshay kadibna aynu nidhi alxamdu lilaah rabbi baa ku mahadsan waa walaalkiina yaasir mukhtaar oo idinla doonaya guusha labada daarood wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh